Assalaamu calaykum. Waxaan ahay Qaasim Maxamed. Ku soo dhawow muuqaal cusub. Ma is weydiisay waxyaabaha kuu muhiimsan ee aad adigu leedahay? Ma ku baraarugsan tahay in haddii ay kaa lumaan waxyaabahaasi aad weyn doonto wax walba? Si aad u noqoto una ahaato qof u dhisan, qof ahaan, qiimo ahaan, akhlaaq ahaan, damiir ahaan oo waxgal ah, yaqaana booska aad aga jirto nolosha dunida, ayay waajib kugu tahay inaad ilaashato labada. Ilaali sumcadaada. Haa, ilaasho sumcadaada. Inaad ilaaliso sumcadaada mas-uulka ma ahan qof aan adiga ka ahayn. Waxaadna sumcadaada ku ilaashan kartaa inaad ahaato qof daacad ah oo aan aqoon wax isdabamariska, ku fiican ballanta, ixtiraama dadka kale, qaata mas-uuliyadda qaladaadkiisa, noqdo qof wax soo saar leh oo aan adduunka dulsaar ku ahayn, la saaxiiba dadka wanaagsan ee ku nool nolosha dhabta ah, kana dheeraada khiyaaliga iyo waxyaabaha aan faa'iido ku soo kordhinayn halgankaaga adduuneed iyo midkaaga aakhiro. oo xasuusnow mar walba inaad ilaashato sumcadaada inay ka mid tahay qaybaha ugu muhiimsan ee noloshaada. Ilaali sharaftaada. Inaad ilaashato sharaftaada waxaa loola jeedaa ixtiraam naftaada oo ha ka tanaasulin qiyamkaaga si aad u raaligeliso qof kale. Dhis kalsoonidaada oo cidnaha uga baqi nolosha, oo ogow waxyaabaha aad xaqa u leedahay inay ka mid tahay inaad u noolaato sida uu Alle raalli kaaga yahay, ee ma ahan inaad u noolaato, u dhaqanto, kuna raaligeliso qof kale. Ilaalinta sharaftaada kaliya kuma koobna intaas, ee waxaa jira waxyaabo badan oo aad ku ilaashan karto sharaftaada, sida inaad muhiimad siiso naftaada oo aad u daryeesho si dhammaystiran, muuqaal ahaan iyo maskax ahaanba. oo waxaad xasuusataa sharaftaada waa naftaada labaad. Haa, sharaftaadu waa naftaada labaad. Waayo haddii ay markaa lunto sharaftaada, way adag tahay inaad dib u yeelato wax sharaf ah. Ugu dambeyn, sumcadaadu waa waxa ay kugu yaqaanaan kana malaystaan dadka kale, taasoo sababta inay ku ixtiraamaan kuna qiimeeyaan, halka sharaftaadu tahay sida adigu aad u aragto naftaada iyo sida ay kuula weyn tahay qiyamkeeda. Hagaag, inta aan goordhow ku kulmi doono muuqaalka soo socdana waxaan ku leeyahay, naftaada labaad waa sumcadaada iyo sharaftaada, ee ku fara adeeg ilaalintooda. aad ayaadna ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Mahadsanid.